بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dawladda ka codsanayaa sharafta leh aniga oo ah cadar shiro ugaas dhibana ah degmada Hurwaay ku dhalay dadkan ku dhalay awlaad ku sii dhaleen oo 30 sano aan deganahay oo aan leeyahay dhulka meeshaas ku yaalo oo marqaati u haysto intaas oo muslim oo agtahay oo dariskaygu og yahay ayaa layga haystaa oo nin dhexbartanka ka deg hadduu dhexbartanka ka degana dawladdan u soo tacwood 7 sano aad degmada laygu haystay gidiga khilaafaad kala toola igu haysta oo arta ku cabiray degmadana waxa igu haysta wiil jacfaana igu haystay haddana wiilkiisa igu haysta intaasan dacwo u taagana dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa oo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaya dhulka wax ii qabta waa waaye qof wax ii qabanaysana ma leh intaasan cararaay dhiikar iyo sonkora igula dhacay dhibaato igula dhacday hooyo Soomaaliyeedana waxaan rabaa dawladda sharafta leh alaabtaydi bannaankay taal xabada laygu ilaafshay tubooyinkayga waa la gooy madaxweynaha waxaan ka codsanayaa oo ra'iisul wasaaraha ka codsanayaa oo gudoomiyaha gobolka ka codsanayaa banaadir sida ugu fudud in wax la igu qabto sida ugu fudud in wax la igu qabto saasa ay haysata technical layla dhacay alaabtaydi qorraxday taal ay ku baabaaday alwaaxi ma awlahan lama yeerigi iyo alwaaxi iyo alaabtiisina ma waa isku baabeen كل أول شنقل أساس يجاه الله وضيع ولا يديد إن عند استاء عند جل يديد ودق وايي وجد وايي ودس وايي وعلى يديد إن عند جه كانتي قل ساس يكون بابا هذا أنا واحد ما قال كلا كنس سيدي يا رب تيجي بناك أطلع حبذا أبا مركان الله يكين سيدي استولى دولة أنا قاعد أقول كيقول سيدتني يلا بدي يوم بحيور واي غير مؤمن لو لا عبري وأنا تاجني غير مؤمن لو نقصد إذا الله يسوي ديما يدي لي ماذا هو واي لي ماذا وح يقبل غير مؤمن لو لا النقصد إذا كينا oo haysta ina waana lagu xiraha la yiri dawladda xabiskeeda ku ureeha la yiri hadii jinka dumaha siita loo qaadina la yiri hooyo Soomaaliyeedanahay wadankan u soo halgamay waa aan soo shaqay jiray hooyo Soomaaliyeedanahay waxaan dawladda sharafta la ka codsanaya sida ugu fudud inay dhulkayga igu siiyo oo ay soo gurmato oo ay timaadaan dawladda sharafta la ka codsanaya sida ugu fudud inay igu timaadaan ka codsanaya dhulkayga waxa waaya dhibaato xoog leh gaartay 7 sano oo silcaayay sanadkii 8aad mar hadda dhashay oo bisha 3aad mara waxaan dawladda sharafta la ka codsanaya oo dawladda sharafta ka codsanaya hooyo Soomaaliyeedana dhikara igu dhacay sonkora igu dhacday dhibaato igu dhacday hantidaydii oo dhamaan muslimkii aan wax ka gatay waxay qabiilkayga la igu dacweeyay hantidaydii oo dhan waxaan ku baabiiyay dhulkaas nina xoog iga haysta degmada ku daaban yahay dawladda waxaan ka rabaa inay wax qabato